Soomaaliya shalay siday ahayd maanta ma aha dhan walba marka laga eego dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada amniga iyo siyaasadda xiriirka dibadda meel walba sidii ay shalay ahayd maanta ma aha airportkan dhexdiisa oo aan leyr lahayn nal ma leh gawaarida ayaan inta leerka u shidnay ay ergada meesha fadhiyeen maalinka waxaa la lahaa aada Ethiopia iyo Kenya dalalka dariska ah si aad hawshan u soo qabataan dadku qaar bay wax cusub dhibaan oo wixii ay barteen iska jecel dhibyarada u yeelayo laakiin waxaan hubaa haddii la aado halka oo targetka la aado inay noqon doonto tallaabo Soomaaliya oo ay xilliga soo socdo Soomaaliya shalay siday ahayd maanta ma aha dhan walba marka laga eego dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada amniga iyo siyaasadda xiriirka dibadda meel walba sidii ay shalay ahayd maanta ma aha meel walba waxaa galay effort tiro badan iyo hal abuur cusub waxaa halkan laga dhawaajiyay in isbeddello waaweyn oo 2004 ilaa hadda adduunka ka dhacay ay saameyn ku yeesheen dhaqaalaha global adduunka jiro rag qaar ama waxa la ninkii February ma dhibaato ma kugu dhacday wuxuu yiri waa taas u February aniga miinis dabayl badan baa ku dhacay soo iska dabooli kar annagu hadayna saameeyeen kuwa gaarna ay loo yaalaan oo ay ka mid tahay dalkeena wargixisa ah u diideen inuu fariisto oo dadkii beeraha qodan jiray lagu soo xariyay dibisada oo beerihii ay dalagooda xumaaday dhanna abaartii ka saameysay amnigii inuu ay saameyn ku yeesheen dhaqaalihii oo inta dadkii inay baadaan oo xoolo ka qaadaan oo yani meel ay dhibaato nooca dhacday haddii la yiri aan iska joogno formada aan baranay siyaasi ahayd dalka aan meel geenin oo dadku aad moodid inay barti aqoon barimo kordha ay u bateen waxyaabahaas waxay saameyn taban ku yeelanayaan dhaqaalaha dalka iyo horumarkiisa waxaan aad ugu faraxsanahay hadda maanta inaan wadno qorshe la isugu tagay oo kan isbeddelka dhaqaalaha qaranka ugu horeeyo mid siyaasadeed oo aan bulshada ama dadka Soomaaliyeed inay talada yeeshaan cidda xukumayso oo runtii sida la tilmaamay laf dhabar u ah in amni la helo laf dhabar u ah in horumar la gaaro in dib loogu celiyay oo runtii baarlamaankeena labada gol arintaasi maada ka gaadhay ay ka shaqeeyeen dadku qaar bay wax cusub dhibaan oo wixii ay barteen iska jecel dhibyarada u yeelayo laakiin waxaan hubaa haddii la aado halka oo targetka la aado inay noqon doonto tallaabo Soomaaliya oo ay xilliga soo socdo waxaan xusuustaa dadka qaar baa joogo markaan joogay 820 ergo ayaan ku ansixinay dastuurkii ku meel gaarka ahaa airportkan dhexdiisa oo aan leyr lahayn nal ma leh gawaarida ayaan inta leerka u shidnay ay ergada meesha fadhiyeen maalinka waxaa la lahaa aada Ethiopia iyo Kenya dalalka dariska ah si aad hawshan u soo qabataan laakiin go'aan markaa adkaa sida loo arkayay la qaatay oo ahaa in dalka gudihiisa ay ka dhacdo isbeddelka lagu sameeyo waxaan ku soo gaarnay inaan maanta aaminayno inaan doorasho qof iyo cod aadno oo sahli doonto in laga baxa marka dambe wareer dambe oo siyaasadeed political stability wuxuu saligu yahay horumar kasta oo la gaaro waayo markaad jilicsan tahay cid kastaba way ku faray kula soo galaysaa waxaan ku kalsoonahay qabka Soomaaliyeed iyo adkeysiga dadka Soomaaliyeed iyo niyad wanaagga madaxdooda joogta hadda inay ku gaari doonaan inay ka talaabsadaan dabinnada iyo caqabadaha badan ee runtii loo dhigayo dadka Soomaaliyeed
مرة بينان كوفق هذا وحن أجاهي واحد أكتر مكوش شجع أي حالة ضل كمان تا وحن كم هاد عليا دقة وزارة قرشنتا ده دقتي إن أنا نجو حكت هذا إن أنا لا نهاي عن قرنه صور بنجنو لبا صور بنجنو هذا بدن باوداغو هذا قيب كأ كوا بدن ويكسو بيوانو قرحن دونا وحرجينا مركز دنبا إن أنا نجو وحن لا نهاي أي نقدان واحد رف قريو دقالة هنا إيو هرو مركز الكيانا هاي صورن ماغتي واحد بدن مجشد قف كسر سوماليا oo ku talagala hay'adda meesha uu joogo xafiiska uu soo joogo wuxuu wax ku soo biirin karaa isbedel ku dhaco dadka Soomaaliyeed dhaqaalahooda amnigooda iyo siyaasadooda muqdisho general hospital waxa diyaar kuugu ahaa dhakhtarka daaweynta qaliimada iyo kabida lafaha dr cilmi yuusuf oo ah qabiir ku takhasusay xanuunada ku dhaca lafaha lehna khibrad in ka badan 30 sano haddaba si aad u bogsoto la xiriir dr cilmi oo diyaar kuugu ah muqdisho general hospital nasruddin baarubax